السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي وما هدسك له ولا ليال. إن شاء الله تعالى وحير بان بدامين دونا إن شاء الله تعالى كديران مايو وما سنتهين dad aad u fara badan oo asxaabtayda ah meel kastoo joogtaanba waxa weeyaan aad bay arrinkii uga xumaadeen waana ila soo xiriireen waxaan codsanayaa inaan isoo wicin intaan maarta hawsha ku jiro insha Allah taala khadkaysana iga soo wicin marka waxay inta badan iga codsadeen inaan clipkan iska daayo laakiin clipkan waan jeclaan lahaa walaalayaal inaan iska daayo laakiin waxaan isaga daynayn hal arrin baan rabaa kaliya inaan xooga ku saaro insha Allah taala arrinkaasina ay iga harto oo dhan u dhacdo insha Allah taala walaalayaal waxaan joogaa maalin dhaweyd meeshaan in kala soo hadlayay baan joogaa oo ahayd Safo iyo Marwa waa garanaysaan halkaasaan joogaa salaada casar baan ka soo baxnay alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh subhanahu wa ta'ala beedkiisa mar walba nagu soo celceliya oo na keena walaalayaal kuna dheeraan maayo insha Allah taala ku dheeraan maayo insha Allah taala horta waa maasantihiin saad wax badan ila fahamteen sida sharafta iyo karaamada leh ee aad ila qeyrooteen aad baan maartay ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka Allah idin saaro wax walbana waa idin xaqiiqoobeen wax walbana ilaahay baa subhanahu wa ta'ala cadeeyay laana qofka miskiinka ah ilaahay subhanahu wa ta'ala xadiiskii qudsiga ahaa 40 nabawi ku jiray waa tuu yiri adoomadaydiyo aniga naftaydii ka xarimay dulmi haystulminina waa tuu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala ba sidaas nale marka dulmigu shay xun waay mid kale qofka la dulmiyaa waa qof dacwadiisu mustajaabo tahay oo isla markiiba laga aqbalay anigu laakiin xumaan oo qoori maayo habaarna oo qoori maayo ma habaaray ilaahay ma ila maalinkii waxaan lahaa ilaahu soo hanuuni hadduu hanuun u qoran yahay ilaahu hanuun وانا كلمة صحوة مركب ولا ليال وحن ربا إن شاء الله تعالى أن كل ديران مايو وحن ربا لبا أريموت كلية إنان سوق هوبو أو مارتي لبا أريموت كدكتو لبا أريموتنا إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى آت سميسان غلط كذا صحدا اللي يدونكم مرخانتي الباتين موقت abtiyaashay horta in badan oo fiican way la soo xiriireen waa dad fiican waa dad nasaba waa dad gob ah ma garanaysa laakiin hal qof ama laba qof oo xun u niximaayo kamana gooy karo waa abtiyaday way xasha wujud xumaan uma quuro waxaan hadda halkaa u taaganahay wax kale ma aha aniga cirdigayga iyo sharaftayda haddii meel looga dhici lahaa kama hadleen waligay baa maaragtay annaga wax walba nala ka sheegi jiray waad ogeydeen wixii la doonaa nala ku oran jiray taasu dhib ma leh nin ragaad u tahay laakiin hooyada oo duruufaysan oo duruufta uu sababay ninkii qabay oo sidaa loo galay in adigii lagugu ceebayo kaaga daranka cidda ceebaynaysaa ciddii ay ka dhalatay tahay ciddii ay ka dhalatay arkaasa macna macquul ila noqon waayay gobannimo ila noqon waayay marka abtiyada laakiin waan ka raali gelinayaa in badan oo siday qaabkay ma garanaysaa dadku si in fiican baan hooyaday xalay baan wada hadlayn alxamdulillah hooyaday wax walba iga warantay warkeeduna wuxuu ku cad yahay inta idin tiri hooyo waa ku jecelahay bay tiri jannadii bay igu ducaysay janno wax ka fiican ma jiro adduun iyo aakhiraba waan ku ducaayay markhaanti baad iga tii hooyaday
markaan soo baxayay baan wada xiriiray inta waa walaalahay baan wada xiriiray kuwa kale kaamirada iska qarinayo aan ogahay walaalahaya oo wiilka iyo gabadha kala baan wada xiriiray marka reerkayga saasaan la socdaa laakiin waxaan idin sheegayaa hal dib oo meesha ku jirta baa jirta taasaan marka maanta u soo galay inaan idin bayaaniyo waxna laga qabto insha Allah ta'ala halka arrin walaalayaal waxa weeyaan wax kala maaha waa ninka iska dhigaya naasixa oo aniga maaragtay in naseexaynaya oo le arrinkaas waa sida ninka odaga ah waxa la sheegay horta inay odaga isku reer yihiin odagana ay shirka yihiin hawsha la helayo iyo nadaabka la helayo lagu tugsanayana inay shirka ku wada yihiin baa la sheegay waa ninka odaga iyo adeerkay waa shirku labadooda ilaahay wuxuu ka qirsiiyay oo ka soo iftiimiyay miskiin baan ahay xaramkii baan joogaa waa lay dulmiyay ilaahay wuxuu ka soo iftiimiyay inuu afkiisa ilaahay ka keeno intaana dad badan anigu laftigaygu aan dulmin inuu yiraahdo ana ka dambeeyay ki Garcia TV kiisina ana ka dambeeyay kana ana ka dambeeyay waxaan ugu soo noqday marka marlabaadka muxuu soo qaatay walajeedada uu kala yahay maxay tahay walaalayaal ninkaas horta waxaan leeyahay horta aniga abtigay baa tahay wali waa isku xushmaynaya xushmadii adigu waa ka tagtay si aan caadi ahayn oo wuxuushnimo aba u dhaqantay hooyaday waa hooyada inaad markasta halka soo dhigto oo social media oo tiraahdo sidaas yeel oo guri noo dhis saas yeel waliba waan ku ogahay kaamirada inta gadaal ka martay baad amraysay markii hooyada ii ducaynaysay oo lahayd waa ka wiilkaygu wax walba waa oo qalada way dhaceen hooyaday markay lahayd aniga ay difaacaysay yaa adigu dhinacana martay odagaana la hadlaysay odagaad la hadlaysay waa ku ogahay oo maxaad lahayd naga jooji habarta murankeeda naga jooji yay wax badan nagu qarxine naga jooji murankeeda marka walaalkayow horta haddaan naasix tahay abtiyow baan ku leeyahay waliba abtiyow haddaan naasix tahay oo qof wanaagsan tahay oo nin goba tahay oo wax isku falaya anaa ila soo xiriir lahay telefoonkayga nin caana baan ahay xamar oo dhan baa layga yaqaan baydhabo oo dhan baa layga yaqaan meel kasta layga yaqaan markiskayga layga yaqaan telefoon hatta markiska waxa dhigta intaas oo boqol oo qof baa dhigta oo reer koonfur galbeed abtiyaashay xaasha wujud intaas oo boqol baa dhigta telefoonkayga soo heli kartay WhatsApp-kayga soo heli kartay waad ila soo xiriiri kartay waxaad oran kartay abti uu saasay wuxuu jiraan maxaan sameynaa gurigii waa la gubay gurigaad sheegayso oo waa la gubay aad leedahay inaad ila soo xirto tiraa guri uu saasay wuxuu dhiceen aniga waad ogtaa waxa ila eegatay markaan xaramka soo galay baad ila eegatay hooyada markaan xaramka soo galay baad ila eegatay ilaahay ka baqmayso bina aadan ka baqmayso waxa weeyaan diin ku celisa haddaad garanayso abtinimo garanayso oo wax walba aynu isu nahay aad garanayso waxaad ma samayseen kaaga daraka markii hore samaysay dhib ma leh mar dambe haddana kuma soo celiseen waxa kaaga sii daran wiilaan adeerku ah wiilka waalan dhalay baa waxaad u dhiibtay bahalihii kabaha lagu baalashay jiray kaba baalash baad u dhiibtay inaadan xishoonay wax isku falayn markaas aad tiri reerka dhan wuxuu ku tirsan yahay wiilkan waa tuksi caadi ah maxaa tiri reerka dhan been baad sheegtay reerka cabdi nin la yiraahdaa jooga oo gaari wada oo biila oo hooyaday wuxuu keena ma garad ninkaasaa jooga sharaftiisa iyo karaamadiisana meel baad uga dhacday hadduu isagu og yahay isagay u taala hadduusan ogeynna waxa weeye sharafkiisaad meel uga dhacday wiilu adeer u yahay ba waxaad ka dhigtay baalashle waan miskiina waxba ogeyn oo dambiil u soo gatay waa filin aad isla jilaysaan adiyo adeer wayna muuqataa wayna idinka soo baxday ilaahay baa idinka soo saaray subxaanahu wa tacaala safayo marwaan joogaa meeshaan joogaa waa xaramkii meel dadka lagu gardaraysto maaha meel dadka loogu gafo maaha ilintaydii baa daadiseen abtiyow ilintaydii baa bannaanka u daadisay waxaad igaga ciyaartay cibaadadaydii baa ku ciyaartay
لما هبين ما أخان سدانها أبتيو إلهي بان خداري وحاad samaysay ma wax xunba ma wax fiican bal Soomaalidaas waa ku qarqaatay ya ma wax xunba ma soo wax fiican ya marka adiga dib male adiga warkaagu waa cadiya adiga warkaagu waa cadiyayo wuxuu ku cadiyahay waadigii adiga isqanjiirinayo lahayd guriina loo dhisan rabna iyo baalkii guriyahana ina cunta bartaa anigu hooyaday halkeeda ana haya hooyaday halkeeda hooyaday meel dambe oo loo baalkeenayo ama loo tuqsanayo ma jirto hooyaday intaan u imaanayo kaliya igankeed xigta haddaad xishoonaysaan oo wax isku falaysaan oo bini aadam wax isku falayatihiin wiilkaad abtiga u tihiin maalin kasta inaad ilmadiisa banaanka u daadisaan xaramka ka xishooda وهذا أبتياشي تهين وضد نسبتين نسب يا وحن كما هذا الكرو أنا أقول معنا وحن هو يضي أقبطي مركان إديني ماذا كهالليا هرتينا كهالليا أنت وحيابود أو يقول دعي هرتينا كهالليا إلهي بقى لكن صوب بندق ما يحاشا وجود ضد قبا بانكدش قب إلهي بانكدش وحن مصبين كرو لكن كيجا ما dhaqanka iyaga ma aha annaga waxaas abtiyow aniga waxba ima aadan hambayn waa markii labaad ee aad hooyaday soo galiso aniga yahay waxa doonto igu sheeg waa ku ogolaay hooyaday ka daa hooyaday waa xanuunsan tahay hooyaday ka daa haddaadan habaar rabin hooyaday ka daa sida ku ciyaarin waa hooyadaayoo kale hooyadaayoo kale way ka xishood ciil bay hoosta ka qabtaa waan ogahay ana hooyaday og ma garad wax walbana way iga warantay waxaan ku sheegayaa abtiyow anigana inaan ilmadayda daadiso waxba ku falin ku raaxaysan wiil aad abti u tahay oo ilaahay u toobad keenay oo xaramkii jooga حرمكي إلهي ويلي جوغا وبشهر رمضان كفايدة سلا إناد كو عيارتو وحن كوكو شاكو كرماي أبتيو وحن كوكو شاكو كرماي وعلى الحمو تاسل كاسان كاقب حيا لكن وحن كو شاكو يا أبتيو أنا قورتو وحن الله يا هدا قدب كالي وحاوي وحن الله يا lafta gareen madaxweynaha koonfur galbeed oo dhan mudane madaxweyne dalka xilba ka saaran dadka reer koonfur galbeed baa lagu doortay ilaahay ka sokow dawladda federaalka ka sokow reer koonfur galbeed baa lagu doortay iyagoo dhan baad mas'uul u tahay ilaahay baan kugu dhaariyay mar abti baan ku ahay aniga abti ku ah sida la ii sheegay gabar ma reexaana ku dhashay abtiga baan ahay marna abti baad ii tahay adiga abti ah waxay dhashay xaajiyad hooyaday oo reer koonfur galbeeda baa marna i dhashay adigu mar abti ah aniguna mar baan abti ku ahay ilaahay baan kugu dhaariyay abtiga oo halka jooga oo xaramkii jooga ilmadiisa ninka daadinaya oo banaanka ku daadinaya haddaad iga naxayso oo abtiga ay tahay ducadayda waan ku soo duceynaya xaramkan kaaga duceynaya ducadayda lafta gareeno arrinka wax ka qabo oo ninka cadaaladda ii maray ninkaas waa qirtay waxaan qirayaa dambi inaysan lahayn gaarsiya ee isagu dambi leeyahay isaga dambi leh gaarsiya hadda dambi ma leh xaramkii baan joogaa cidna ku takrifali maayo waa abtiyaday gaarsiyo dambi ma lehdin isaga dambi gale waa qirtay ninkaasaan haystaano lafta gareenow ha ku raaxaysan ilmada iga dhacaysa oo xaramka la joogo ha ku raaxaysan lafta gareenow ilaahay intaad ka baqdo ninka cadaaladda isa anoo qoslaaya rabadaanku ha dhasho anoo qoslaaya haddaad islaam tahay midda kale waxaan kaloo la hadlayaa ninka kaloo la hadlayaa waxa weeye
اسمع لين كريان ولا ليال اسمع لين كريان والله بالله سيدانا هي كرناي نينك كلا الله الله waxa way waxaan kala hadlayaa saddex laba wasiir baan la hadlayaa wasiir waa Ilyas Nikalaya wasiirka warfaafinta mudane Ilyas abtiyow Ilyasow say soo wicin walaal abtiyow Ilyasow waxaan kugu tuhmayaa khayr fara badan Dubai markaan joogay oo wixii qurunka ahaa aan ku jiray Universal baan ka daawan jiray adigu oo quraanka aad yaabayso sida aad u aqriyayso ducaada dadka halka ka leeyliya abtiyow khayr badan baan kugu tuhmaya abtiyow nin wadaada baan kugu tuhmaya abtiyow anigoo ah wiilad abti u tihiin oo xaramkii jooga ninka ku raaxaysanaya oo intayda wax iga qabta cadaaladda iyo marsiya hooyada intaan idinka imaanayo kaliya igu sima abtiyow Ilyasow adaa kula hadlaya anshaxi saxaafadda lagu ciyaaray anshaxi bini aadantinimada ma aha muslimnimo ma aha hooyada adiga waa hooyadaayo kale ka soo qaad Ilyasow waa hooyadaayo kale hooyaday waa taadoo kale ka soo qaataadoo kale oo inta ninkaas soo qaato xoog kaga duubo oo yiraahdo waliba dhageyso kilibyada dhageyso labada kilib dhageyso madaxweynaha dhageysi wuxuu leeyahay noo soo dir lacag aan guri ku dhisano abtiyow Ilyasow arrinkaas saxaafadda nimanka sidaa sameeyay mudankooda marsi ninka sidaa aad marsiiyay oo sidaa sameeyay anu adeerka hadda waa iscadeeyay waxba uma haysto adeerkay waxba uma haysto warkiisu waa cad yahay warkiisa Ilaahay baa ka keenay wuxuu damacsanaayo dhan waa la ogyahay Soomaalina ogaatay muslimku ogaa aniga ninkan rabo waa ninkii cad waxa igu sameeyay waa ninkii foolxumada igu sameeyay waliba abtigaya iga xishoon waay aniga wuxuu doonaa iga sheego waa ogolahay Ahmed Biif Ahmed Khayr baa sidaas hayra wuxuu doonaa yira laakiin caarka iyo ma garanaysa dumarka iyo birimageydada in la iska maro abtiyo wax saxsan ma Ilyasow nin diin le baa tahay abtigay baa tahay nin diin le baa kugu tuhmaya abtiyo Ilyasow wax ka qabo wasiirka kana la hadlaya wasiirka cadaaladda abtiyo adigana ninka cadaaladda marsi hooyaday kilibada ka soo duubanaya hooyaday dadka u sheegaya war sawtii la yiri ceebaha hal asturo war aniga la ila soo xiriiri kara war Sacuudiga aan jooga war markii sulsunan deganahay war hooyaday sida ka daaya war hooyaday kubadda ka dhiganina isqabta walaalayaal bilis isqabta waydin bariyaya abtiyaalow isqabta calool xumada iga daaya hay guridin calool xumo aniga hooyaday waa waasheen aniga ma inay waashaan madaxa inay gashaan ma aragtaa abtiyaalow iga xishooda abtiyaalow hooyaday nolol fiican bay ku noolay 8 bilood waxaan xusuustaa hooyaday way la hadashay hadal baan ku soo daayay hal qodob baan ku soo daayay inaan nin gob ahay baan ku sheegaya abtiyow hal hadal baan ku soo daayay waxaan hooyo maxaa ka doonaysaa noqon aniga ila joog intay iska cayisay iska naxday oo fiicnaatay markii sulsun ana guursaday oo jooga waxay igu tiri hooyo waxay tiri hooyo muslimka adduunka lagu dhibaa hadalkaas laftigeeda tiri waa naxay waxay tiri hooyo muslimka adduunka si degan intay ila hadashay waxay tiri hooyo muslimka adduunka lagu dhibaa raggan oo dhan iyo waxaan oo dhan waa wada dhufaan soconaya waxa la waxaad ii soo dirtana waa cunaya si aan yeelo ma aqaan laakiin hooyo cimri baan iska joogaa waxaan sameeyo garan maayo waxaad yeelaysaa hooyo ifasax waa ku duceeyay adduun iyo aakhiraba waan ku duceeyay oo madaxa iga dhunkata oo meel kasta iga dhunkata oo tir hooyo ifasax oo iida aan hal mar u tagay wax yar soo eege aniga waxaan islahaa wax yar bay u tagaysaa oo way soo arkaysaa kadibna waa ku soo laabanaysaa imaba soo laabanba saasuu sidiisa hawshiisa ku watay marka anna waxaan ka xishooday hooyada inaan joog iraahdo laana hooyada qalbigeedaan ilaalinaya waa hooyo waa dulman tahay waa miskiinad laakiin maxaan ilaalinayaa anigu hooyada qalbigeedaan ilaalinaya
walaal waxaan ilaalinayaa hooyaday baan qalbigeeda ilaalinayaa hooyaday qalbigeedaan ilaalinaya abtiyaalo saasaan u soo fasaxay oo adeerkay ugu soo fasaxay waxyaabo badan baa jira markaan baydhabo idinku imaado baan idinka warrami doonaa odagaas gartiisa meel bay taallaa dhib ma leh yaa abtiyaalow haddaad isqabataan oo iga qabanaysaan ninkaas biliis waa idin baryayaa iga qabta abtiyaalow iga qabta abtiyaalow iga qabta abtiyaalow ninkaasi cadaaladda ii mariya intaasaan ku raaxaysan karaa qalbigaygaa degaya cibaadadaydaa soo noqonaysa abtiyaalow biliis waa idin baryayaa ninka waxaa sameeyey oo qirtay ka daba taga meeshuu joogo uga daba taga intaasu baan idin oran lahaa waana idiin imaanayaa insha allahu waa idiin imaanayaa baydha baan idinku imaan doonaa abtiyaalow wasiirka cadaaladda wasiir Ilyaas madaxweyne lafta gareen abtiyow marna abti baa ku ahay marna adaa abti ii ah hadalkaasu ha ku galo abtiyow marna abti baan ku ahay marna abti baad ii tahay lafta gareenow wax ka qabo arrinkaa ninka cadaaladda ii keen anigu hooyada wax kale uma rabo anaa ka haysanaya aniga haysanaya meeshaan doonaan la tegaya xaramkaan geysanaya meel allaale meeshaan doono baan hooyaday waa ahlu janno miskiinad waa saabirad way sabirtay dhibtii bay ku sabirtay ciyaalkaas hooyadood agteeda meelahaasaa lagu qabaa ciyaalka hooyadoodaa loo geynaya ciyaal hooyadood lagama kaxayo hooyadood u geeya anigana hooyaday siiya bas hooyaa dhashay oo joogto oo 20 jira ciyaalka hooyadood ha loo geeyo hooyaday inay madaxa ka cunaan ma aha in hooyaday lagu tugsadana ma aha xaraam abtiyaalow ha ku raaxaysanina oohintayda ha ku raaxaysanina waa idinku soo celcelinaya abtiyaalow oohintaa iga dhacaysa oo xaramka igaga dhacaysa hay igu soo celcelinina miskiin baan ahay taayib ilaahay dartii u toobad keenay baan ahay 60 sanaan marayaa 60 sano baan marayaa oo aan rabaa inaan ku rabadaansado marka waswaas iga gelinina shaydaan yaan la igu noqon wixii shaydaanka igu noqon lahaa iga qabta yaa waka hadde markaa soo baxayay buu ila soo hadli kari lahaa hadduu khayr yahay oo khayr miirayo markaa soo baxayay hooyaday baan la hadlay markaasuu oran lahaa wareedha axmedow waxaanaa jira waa simbal waa qaban lahaa qof baan ugu dhiibi lahaa kolle isagu uma dhiibeen laakiin waa ogahay waa ka aamin baxay heer waxaan gaaray baqaaladda iyo meesha u dhow aan idhaahdo hooyo tag halkaa tag telefoonka iska ilaali xaggaa tag telefoonkaba looma ogola inkastoo looma ogolay walaalayaalow ilaahay baan idinku dhaariyey ceebta waa hooyadiinoo kale waa hooyadiinoo kale xataa waa hooyo oo weliba xanuunsanaysa iga daaya marka waxaa la midida qofka kugu dhuftay iyo qofka kugu walwalaaqa kee daran kan kugu walwalaaqaa daran waa igu walwalaaqdeen warankii intaasaa ay geliseen basa igu walwalaaqdeen laannahu aniga wax walba baan ku yidhi diyaar baan anaa dembigaygu iga badnaa kayga iga badnaa diyaar wax walba inaa iga sheegtaa waa ogolahay abtiyow miskiin ilaahay u noqday baan ahay toobad keenay laakiin hooyaday waa hooyo inaa halkaas soo istaajisaan oo tiraahdaa wakaa halkaas saasay tahay oo saa ayaa ka dhigay lacagtii aan ugu diray yaa cunay adeerkiin baa cunay ninkaas odagaa baa cunay wax walba isagaa cunay way og yihiin walaalahay baa og dadkoo dhan baa og ehelkaa og waa gar naqsanaynaa dhib ma leh anigu waa idiin imaan doonaa ila soo xiriira abtiyow Ilyaasow ila soo xiriir oo lafta gareenow madaxweynow dadkaasoo dhan baa lagu dhaariyey ilaahay hortiis reer koonfur galbeed oo dhan baad u dhaarsantahay nin diimeedna waa kugu ogahay adiga lafta gareenow xataa waa nin diimeed baa tahay nin odayaa tahay abtiyow arrinkaa wax ka qabo hooyaday kaamkaa halkaas lagu jidjidanayo oo midtaa la leeyahay ninka cadaaladda halay maro bas intaasaa ku raaxaysanay waa idin soo ducaynaya xaramkaan idinka soo ducaynaya duca haddaa rabtaan wax kaloo aan idin oran karaa ma jiro si kaloo aan idin yeeli karaa ma jirto marka hooyaday waan yaqiinsaday hooyaday waa miskiinad waa saabirad aad bay u sabirtay dhibti baa ka fatay waa ka batay anigana waxaan sir hooyada mar walba qalbigeeda ilaali anoo ka xun
walaashay hadda waa maqan tahay meel kale jirtaa way ka xumaatay iyadoo oo inaysay soo wici jirtay hooyo saasaa loo galay aakhirkii waxaan oran jiray ha ii sheeginina hooyo ha ii soo sheeginina please waydin baryaya laanno aabihiin baa saa u galaya idinkuna raalli baad uga tihiin ha ii sheeginina oran jiray wallah ha intaad soo wacdaan hooyo asaa loo galaya hooyo ku ayga kaxaysatay way baa ku abtiyaalo xishooda oo wax isku fala haddaad iga qaban weydaan ninka oo cadaaladda ii hor keeni weydaan reer abtiyow hadda waa wax kale weeye abtiyaalo anigu tol baan ka dhashay dadna waa leeyahay dad baan leeyahay oon ka dhashay laakiin weli u ergeen maayo waxbaan iskula haraya way u jeedaan lifekaasay ku jiraan yaa si allaala iibsaan hooyaday ku heli karo waa ku raadsanaya bas anigu hooyaday baan idinka rabaa gurya ciddaa loo dhisayaa iyaday u taalla laakiin aniga hooyaday baa i khusaysa iyaday iga saaran tahay jannadaydaabaa ku xiran way ii ducaysay jannatulfardows aclaa bay iigu ducaysay anna waa u ducayaa intaa waa u ducaynaya hooyaday anay ila noonaanaysa anaana haysanaya anaa waxaan doono wax allaale waxaan qabay ila qabaysaa hooyaday igu soo wareejiye intaasaa ku dhaafayaa waad mahadsantihiin wallaahi bilaahi waa idiin mahad celinayaa waa ila taraaraxday waad u jeedaan waxay samaynayo waa markii labaad inaan iska daayo waa rabay dad badan baa igula taliyey waad mahadsantihiin dad badan baa igula taliyey laakiin ninkaasaa rabay in cadaaladda lay marsiiyo reer abtiyada iyo dawladda iyo dhammaanna ay sukaashadaan oo cadaaladda ilay marsiiya anshaxa saxaafadda ku ciyaaray anshaxa bini'aadantinimada ku ciyaaray suu doona yeelayo ilaahay baan kugu dhaariyay abti Ilyaasow bal ninka miyaad aragtay klibkaygii iyo isku soo lifaaqay klib aan waxaan mar hore ka toobad keenay isku soo lifaaqay iyo hooyaday oo le waa ka anaaba ku raaxaysanaya kula war miyaadan ilaahay ka baqay miyaadan muslim ahayn miyaadan adduunyadan ka tagay maxaad ku raaxaysanaysaa laqwi iyo lahw maxaad ka faa'iidaysaa madaxaad iga gasheen madaxa sida hooyaday loo wareeriyay oo madaxa looga qaaday badanna ii gali rabtaan cibaadadayda hadda ma garanayo laba habeen wax ma cunin laba habeen saanahaad ma garan karo dadkii bay iga nahay wax allaala waxaan samayn karo ma jiro in xabsi ku jiro oo kale laakiin ilaahay baa faraj furayo ilaahay waa casiis faraj buu furay ilaahay hooyadayna uu ka hadalsiiyey adeerkayna uu ka hadalsiiyey qadiyadiina waa loo jeedaa waxay tahay siday tahay labadaba ilaahay waa ka hadalsiiyey miskiin baan halkaa la dulminaya marka oohintayda kaliya ku raaxaysan warku idin cadiyahay oohintayda kaliya ku raaxaysanina ha ku raaxaysanina ee arrinkaa wax ka qabta qof kastow wasiir kastow lafta gareen u geey abtigay u geey abtigaabaa sidaas adigana abtigaa weeye isaguna waa abtigaa runta u sheeg arrinkaa wax ka qabto cadaaladana ha lay marsiiyo ninkaasaan ka rabaa keliya cadaaladda in la marsiiyo haddaan cadaalad haddaan helo anigu waa raaxaysanaya niyaddaa ii degaysa qalbigaa ii degaya soomaaliya aan cadaalad aan helo wax kale idinkama rabo hooyaday anaa u nool cidna loo tugsan maayo cidna loo bahalkayn maayo waa idiin sheeg waxba uma baahna markiskii baan la tegayaa halkaasay ila joogaysaa alxamdulilah waa la soo hadli karaan weliba telefoonnadayday kala soo hadli karaan kulli way haystaan markay u baahdaan waa soo wacaya hooyo haye ma fiican tahay waa dad isdhalay ma kala jari karayo laakiin anay ila joogaysaa xanaanadeedu anay la saaran tahay laanna hooyaday hadda waxbay noqotay duq bay noqotay maskaxdii bay ka wareeriyeen maskaxdii bay ka xanuujiyeen waa xanuunsan tahay anaa xanuunka ka daawaysanaya insha allahu tacaala anaa daawaysanaya intaa may samayn kartaa yaa ii sameeya intaas waa idin ducaynaya ducaan idinku daraya hana iga waswaasanina saacad aakhirkii baa lagu jiraa maalin jimcada saacad mustajaabaa ku jirta waa ducaysan lahaa hadda waxaan ku ducaysan ma karanayo
بنكرني قلبي جاي يقوم يلبي بسرعة والله عصر كي مركز تكري دور كي ما سبنا نقدر نسكاه رباطة يرفات كاس ودن نكا أبتغي يبقى يقول سمية ويقول دقي وأبتغي حاسمية أبتغي ولا هي صدق دقي waxay u shiraakoobeen wax kala maaha inay shilimaad yar ku urursadaan bas bay inta u sameynayaan waa wax ay ku heshiyeen adeerkay iyo ninka odaga bas bay ku xukuumada wuxuu leeyahay sida yeel gadaal buu ka soo maray halka usaga wuxuu tilmaamay tilmaamtu usaga bixinaya ya tilmaamtu bixinaya hooyo insha Allah hooyo xalayna waa kula hadlay kollayba waxba daawan maysay waa ku ogahay hooyo xalayna waa kula hadlay xalayna hooyo waa kula hadlay si fiican baan kula hadlay insha Allah taala hooyo waxa waa ka bogsanaysa ha u bixin hooyo waa abtiyaday waxa saasamay dib male iska dhacda adduunka wax walba lagu arkaa ka xishoon waa waliba waxa la sheegay waa isku family hoose baa la sheegay inay yihiin odaga إن إسكو فاميلي هين نين كسا سمينيا والله يشجع درس بوسك دقايا نين نصيحة وخطرة بوسك دقايا أنا سريد وقلي أنا فلان وقضي بوجش كاسو حكد دقايا إلهي نكبر ماي سبحانه وتعالى أنا جو يقول سمينا هايدي وحوكو سمينا كعشون ماي إلهي كعشون ماي بالرمضان بسوق جلسي هن الدباشين ولا لو بالرمضان بسوق جلسي مساجد كان كنتو كذا وكل صلاة وبقول كن أو صلاة هلكي صلاة ويجي عيارسة أنا واحد صوت نمعدا صوت هلكا وين أنا واحد رفتاين هذا جا عيارته أبتيو حدا ربطو إنا كو عفيو حدا ربطو إنا كو عفيو هرتو هذه كل عفين بمايه حدا ربطو لفت الجرين يو إلى أي مدحوينو كسو حران وعدالة لغو مريو إلى عدالة لغو مريو والله بالله تالله إننا نكلا بحي عدالة إنا لغو مريو عدالة بايدي انت سان كسو قبقبيني وحبضان كل ديران ماي تقاح الصوت إلهي كبق مسلم كوا كوجه ذا دad kuwa ku jeeda ilaahay ka baq wax kale oo ku yiraahdo garan maayo waa idin ku dheeray waan ogahay inaan idin ku dheeray laakiin mardaba soo gali maayo hadii ninkaas baalkii la iga sameeyo mardaba ma soo galayo miyaad igu aragteen aniga la iguma arki jirin Facebook iyo bariyaan miyaa soo gali jiray ma soo gali jirin walaalayaal ma aan soo gali jirin waa iska cibaadaysan jiray cibaadadiidaas la dhuuban jiray ها أنا أدبجي يقول كبتين كي يجيب أي كبتنا أنت هذا من داف يو إلهي إنه رالي كنقضه بهدونية قرآن كي قاعد يسكع آخر سنجر وهي وسواس بعد كجرت على الحمى هذه قرتي مروك كوين معرك من رجع هو يدي سلك يعني يالك والله قلت وصلني مروك كوين ده ما بيجر تبع يا والدك waxa ugu muhiimsan waa hooyo xageeda ay gamartay dadka saa u galaya waa dadkii ay soo korsatay dhigeeda iyo dhacaankeeda bay nuugeen qolofteeday nuugeen hooyaday qolofteedii bay nuugeen meel dhigeen dhigeeda iyo dhacaankeeda iyo ku maqayeen aniga waxa way aanu nin weyn baan u tii laakiin haddana naxariista waa loo kala dhashaa ilaahay baa igu abuuray subhanahu wa ta'ala hibaysi waa hooyaday وأنا دينجري إلى هاي درتي ما نقول دينجري أنا هايسان كرا وإلى شوقي كرتو ما نقول دينجري يا وحنا نقول دينجري ندين برنا يوم ميل شوقة بانا وحنا أورنجري هو يدا قلبي هذا إلالي هو يدا حكو حد قد هو يدا صون منك مرة بتو هو يدا نمله سجدا لكن تي وين دافت هو يدا إنه كأدك تمريا وقولي النودسي كساس سميده سدا سيل wax walba inuu ku qasbayna waa ogahay idinkuna waa dogtiin Soomaaliya life dama ma soo galiyo waa runtii walaalayaal life badan soo gali maayo ee ninka kaliya meel ah la iga saar
madaxweynuhu iyo ninkaas wasiir Ilyas waa nin furfuran waa nin dhalinyaro ah waa nin khayr badan ku tuhmayo wasiir Ilyas oo arrinka ka shaqay ninkaas maxkamad hal la keeno ninkaas cadaalad hal la saar waad fahmi kartaa abtiyo nin xaafida baa tahay abtiyo xaafid القرآن baa tahay anigu tol baan ka dhashay abtiyo wanaagsan kowde igu og meeshaan joogo igu xanaanaya igaga warhaya tolkaasaan leeyahay dhib ma leh anaa ka haysanaya hooyaday anaa ka haysanaya meeshaan joogaan la tegaya idinku kaliya isiiya abtiyaalo والله abtiyaalo isiiya sida ay sameeyeen bilis والله saacadii ijaabada xataa way dhaafaysaa abtiyaalo ku raaxaysanina oo inteeda ku raaxaysanina abtiyaalo way idin imaanaya insha Allah way idin imaanaya lafta gareen iyo wasiir Ilyas iyo wasiirka cadaaladda baan ku celcelinaya abtiyaalo arrinka wax ka qabta ninka qalbigaygu dhaawacay hooyaday qalbigeedu dhaawacay annagoo dhan buu na dhaawacay odagaasina u shida kuwii hore u shida iyaga fahmaya waa fahmayaan iyaga fahmaya madaxweyne lafta gareen cajiladda dhagayso tii ka horeysay dhagayso kuwii ka horeeyay oo la duubay dhagayso wixii kaaga soo baxa ku camal fal abtiyo abti baan ku ahay adiguna abti baad ii tahay ana abti ku ah adiguna abti baad ii tahay abtiyo lafta gareenow xil baa ka saaran dadkaas iga xishooda ilaahay ka xishooda wiilkiinii oo toobad keenay oo ilaahay dartii u toobad keenay oo xaramkii jooga baanahay wiilkiinii iga xishooda mar dambe Facebook ma soo galayo laakiin war fiican aan dadka ka maqlo iyo ninkaas waa la qabtay aan ka maqlo anoo xaramka jooga insha Allah ta'ala ducaad iga helaysaan markaas waa idin ducaynaya qalbigeyguna wuu degayaa bisha Ramadaan nimana codkayda ku raaxaysto oo aan iska dhageysano baan ku cibaadaysan jiray laakiin hadda ma garan karayo say noqonayso mar baan israada diyaaradda ma iska soo raacdaa ma iska soo noqotaa waxaan waa ceeb weeye wax kan wax laga xishoodo weeye iga xishooda intaas ugu filan hooyaday intaas ku filan inaad kubad ku ciyaarto adeerow hooyaday kugu filan intaas yakfi kugu filan kubad ku soo ciyaarto waxaan idinka qariyana markaan idin imaadaan idin sheegay abtiyaal waa garnaqsanayna wax badan baan qarinayaa oo ka xun oo haddaan sheego aan saxaafad lagama hadli karinba mana rabo afkayga Soomaali oo uu ku sameeyay hooyada laakiin xaasha wujuud waxbaan iskula haraya inta muuqata kaliya ta taabanaya dambiile maahay caasin nin ah ilaahay 5 sano 6 sano xaramka kuma soo celiyo caasi haddaan ahay caasi waalidayn وبالوالدين إحسان داي إلهي سبحانه وتعالى حق سمر والبحق والدك كل مانيا حق والدك يحق الله بإلهي كل مانيا سبحانه وتعالى وحق ما قرت لكن $5 وما أدري كرو $5 سيكون عضل حبرتها ما بدها هو يضيع مدحي بو كغلي سو دونو كييلay wuxuu doon ku imisa mobilka ku soo waxaan xusuustaa xataa markaan Dubai joogay wuxuu oran jiray Nairobi iyaga joogan u soo diri jiray markaas wuxuu dhaal lacagtaha inta soo badin anu waa maqlaya laakiin uma sheego hooyada qalbigeedana waa ilaaliya intaas dheh haddana waad maqlayseen isagoo leh guri noodis war guriga maad lacagta inta ku soo diray ku dhisato
oo tubaakada iyo balaayada iyo khamriga kulligeen cudur baa idinku wada dhacay waa hooyaday dunuubtaad ka gasheen wiilkaa waalan hooyaday baa laga raacay 6 bilood baa layga qaatay meesha oo aan shubay 6 bilood baan shubay meesha dhaqan celinta waad ogtihiin waan maalintii dhaweyd sheegin markaas bil markuu xiraa oo suu caliye u daadinayay uu soo daayay oo si fiican ay baash uga bixilaa qado iyo quraac iyo cashar loo keenayo ayaad intaad meesha tagteen ka soo deyseen markaasaad maanta waxaa leedihiin gurigiibu naga gubay oo saas lagu sameeyo waa waash dawaanin darooga iska cuna aabihiisaana baray manin xishoonaya caruurtiisana wuxuu rabaa hooyada inuu madaxa ay ka waalaan macquul maaha dhaqan uma lihin annagu waxaas annaga waxaa dhaqan uma lihin ha anigii aanay isoo korin baa saa uga naxaya idinkoo soo korisay oo idin soo korisay oo waxa weeye intaas inta idinku soo dhex noolayd waad saasaa u gelaysaa bilaahi caleyh maxaad rabtaan meydkeedii iyo bahalkeedii baktigeedii ka tallaabsatee inta hartay isiiya aniga bis isiiya aniga isiiya bis intaasu igu filan mushkilad intaasu igu filan dhibna intaasu igu filan khalaas in dhibaato igu filan bay tiri farqaan ku haysta in dhibaato igu filan farqaan ku haysta khalaas hay dhibinina marka cibaadadana hayga mashquulinina please haddii kale reer tolkay baan oranayaa gala hawsha haddaad ninkaa ii qaban weydaan oo wax ii qaban weydaan oo ninkaasi cadaalad ii marsiin weydaan reer tolkay baan la hadlaya laakiin weli la hadli maayo waa ima qalayaan waa la hadlayaa laakiin weli la hadli maayo amaan iskula haraya abtiyaalow idinkaa igu filan inaad ninkaa iga qabataan oo ii keentaan baalshida idinkaa igu filan bes anigana hooyaday anaa haysanaya bes markii sunnaan joogaa ceelasha biya xagu ka yahay waa meel 6,000 7,000 oo qof baa jooga nolosha ku noolayd reer markii soo dhanbay ogyahay nolol fiican bay ku noolayd hooyada caanaheedaan soo qaadaya khayrkeeda halkaas maalkaysanaysa iyo da'daasi wax baranaysay meel fiican bay maraysay wax ka xumaa ma jira laakiin qalbigeeda inaan ilaaliyaan ugu diray mar labaad anaas eedda iska leh eedda hadda anaa isa saaray saa inaan u diraba maaha anna waxaan qalbiga hooyaday baan ilaalinay welina hooyaday sida waa intaasaan idin sheegayaa abtiyaalow wax ka qabta arrinkaas abtiyaalow wax ka qabta waad mahadsantiin mar dambe soo geli maayo mar dambe cibaadadaydaan wadanaya bes ninkaa shaydaanka igu noqday iga qabta bes السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله دقيا والله نظيفنا يا شوي ما شاء حرم كالا دقيا إن شاء الله تعالى تيالو إن شاء الله وهو بس ما شاء الله دقيا مركب تيالو وجد صفية مروة واقع ضي وصفية مروة تيالو جيف يشوك جديدة إن شاء الله وكحرم كنا لا فضل كسعتها والله نظيفنا إن شاء الله تعالى ملك لا تجي مركي أنت أصلا كسو كوبيا أنت أصلا كسو كوبيا خير الله ينسيه والله مرد ما سوق لي إن شاء الله بلال كان حوجا يسكع لي ما سوق لي والله طب ما سوق لي خلاص إذا كان يقول فلان إذا كان يقول فلان مرد ما سوق لي خلاص warkay waqtiyaal waa dhamaad intaas ku dhamaaday wad ma santeen waqtiyaal halkaas meeshii la ordi jiray waa kaatay waa Safiya Marwa oo jeeda meeshii la ordi jiray waqtiyaal marka ilaahay baan idin ku dhaariyay arrinkaas sidaas ah noo ahaado mardama ma soo galayo laakiin qirada waxa iga keenay oo saa galaya oo mindida igu mar walba igu dooxaya waa ninkii waxa igu sameeyay ninka cadaaladda la yiraahdo lafta gareen wasiir Ilyas wasiirka cadaaladda wasiir kale waxa la yaan la hadlay waa jiri oo la igu xiray mar tiyaalo ciilka iga biyo ilmada iga tira tiyaalo ceeb way sidaas waa ceeb fadeexad waa gabadhiini waay waa hooyadiin oo kale waana gabadhiini idinka ka dhalatay waa hooyo idinka ka dhashay waa
waxba ka faa'iidi maysaan وهويو تلكيدي iyo dadkeedii hooyo dadkeedu ma ceebayo hooyo ha aniga maxaa igu eedeynaysan day isaga xilkiisii buu gutay wax kastoon u dirana isaga damkiisa marka abtiyaalo waan salaamaya yaanan taraarixin waxba idinku taraarixi maayo oo maarta hadda is ilaalinaya wali is ilaalinaya wax kale aan sameyn maayo wax kale aan oran maayo ilaahay subhanahu wa ta'ala بحقا افتيميي مركا مسكين بانهاي halkaas aan jooga taayibana halkaas aan jooga ilaahay mooy cid uma baahan miyaanu baan ilaahay baan rabbi baan u baan bas ya rabbi baan gacmaha kor taagtaa markaad rab nimcadan ku jiro iyo barwaaqadan ku jiro idinkoo baan idin la jecel in halka timaadaan sanad walba ku raaxaysataan ya weligay dhibtaan qabo weligay uma sheegin waxa jira shariif sheekh aadan madaxweynihii hore ee koonfur galbeed weligay dhibkayga uma sheegin 3 sanadood baan anigu sijaayadiisa meesha soo dhigan jiray wallahi halkaasaan ka sheegay madaxweyne shariif xasan way maqlaya baan u malaynay isagana madaxweynihii hore 3 sanadood baan meel ku wada afurayn oo xaramka ah oo geegada hoose ah waa 3 sanadood sijaayada aanu iga tagi jiray abtinimaan u arkay احترام مدحو يسارا ولغي wax dhibaal ka ma waligay lacag hal riyaalna Allah ka dhigay isii ma oran marka tiyaal way wax gudbinina isku ma xad gudbo tiyaal abtibaan u arkay saasan sharfay sijaayadi soo la rabo in la tuuro baan ugu qaata oo u qaada meel u dhiga la xaramku marka hor ciriiri buu ahaa jiray marka karoor fariiska xogaa la isu diiday ana qaada madaxan saarsada markaasuu hadhowdii iska yimaada hotelku ka soo baxa markaasuu meeshiisii yimaada iyadoo u shidanta oo sijaayadiisu u taalla abtiyo in masaasay ku samaynaysa eebbu abtiyaal insha Allah dad badan baa ila soo hadlay abtiyaal badanna way ila soo hadlay waana ogahay waad mahadsantihiin gaarsiya TV idinkana waa idin raali gelinay anigu nin dadka ku xadgudbaya ma ahi laakiin arrinku hal nin baa ilaahay ku cadeeyay isagaan isku cadeeyay inuu waxa ka dambeeyay ilaahay baa soo qabtay xaramkaan oo jooga ilaahay soo uu cadeystay inta samarqaanti ugu filan bas uu cadeystay marka waxaan ka rabaa insha Allah ta'ala gaarsiya intaas insha Allah sameeya wad ma santiin abtiya wad ma santiin Soomaali wixii la dirnaxaya anigu waa xoga sadulka iga qaldan wax kale ma jiraan dib kale ma jiro de waa iska garanaysaa nin sida loo dhibayo oo loo dhibaataynayo oo la rabo fiis iyo tuks iyo balaay lagu raasay marka insha Allah ta'ala saasay noo tahay abtiyaalo insha Allah khayr baan idin rajaynaya labadana ku soo noqdo insha Allah hooyadii nabad isku aragno baan rajayn doonaa biidnillah aad baan ogahay inaad ila murugoonaysan murugta i haysata idinkana ilaahay murugta idin ka qaado saad ila murugoonaysan safayo marwaa jooga ilaahay ki caafimaad raba caafimaadaas ilaahay ki xoolo raba xoolahaas ilaahay ki caruur ilaahay ki u baahna ilaahay waxaan uga baryayaa inuu siiyo ilaahay waxaan uga baryayaa waa Shacbaan waqtigii ugu dambeysay ilaahay waxaan ka baryayaa kulliga jannatul firdaws al-a'la ilaahay inuu ku kulmiyo baan ilaahay ka rajaynayaa subhanahu wa ta'ala masaakiin baynu nahay nahnu fuqaraa masaakiin baynu nahay wala la yaab intaasaan ku soo gabagabaynaya ilaahay waxaan ka rajaynayaa hooyada macaan waan jecelahay insha Allah ta'ala nabad baan ku iman doonaa waad mahadsantiin abtiyaal aad baad u mahadsantiin arrinkaa waxa laga qabto arrinkaas yaanu dib dambe soo dhigin hadduu soo dhigo waa wax kale markaas waxa weeye abtiyaalo wax kale noqonaysa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واد محسنتين أدبد محسنتين ده وحن إن الله قرن معي واندين ما تعلنيه ويلقي روتين ونجحي سفي عم بعد يلقي روتين والله مهد باندين علنيه واندين تعيني قفل بابا إلهي سبحانه وتعالى ماشي إلهي وسقى قرناي
qof walbaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u bogsiyo ilaahay baa wax bogsin kara wax walba rabbi baa inoo haya innagoo addoommayna rabbi haddaynu ku xirraanno waxba waayimay isagaa wax walba inoo ballan qaaday subxaanahu wa tacaala wakaa marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هذه واد ما سنتي قلبي يا نيدا وهذه وما سنتي وارنتي والله ما عاصم ما بإيمان كرب وارنت عاصم ما أي كرو عاصم ما إيمان كرو هالك وارن هو يضي إذا يجش عشاء مله لما أنت تضوي يجش عشاء وحي سكر السي أنا يجش عشاء سبتك كنت وحوي الحمد لله رب العالمين وهو يسعى سميان وأنا بحر سميان أنت لا ضل إن شاء الله أفتياره خير بعد قلتين يا صاحبي يا الصومالي ودن عادي ما سنتي صح إن شاء الله هذا الفي عنه كسو مغلو كفر قلبي هذا الفي عنه أنك مغلو كارسي السلام عليكم